oo dadka intaa leeg isugu yimid qolooyinka kaamirooyinka watay waxaan rabaa inay si fiican u muujiyaan shacabka halkaan isugu yimid maanta ma jiro qof la soo kireeyey oo kira lagu keena sidii caleemasaarkii ama xafladdii ay shalay sheegteen kooxdii qarandumis inay qabanayaan oo kale xafladdaas waxaa isugu yimid dad la soo kireeyey tikidha loo soo gooyey dayuurada la soo saaray ama dayuurada barmuudaha ha noqdaan waxaynu arki jirnay barmuudooyin kale laakiin dayuurada barmuudaha lagu keenay waxaynu arki jirnay marka hawlahan oo kale la qabanayo shacabka deegaanka hawshaas loo qabanayo hawl uu leeyahay inay noqoto intaan soomaaliyeed ee rag iyo dumar leh aqoon-yahan leh dhallinyaro leh waayeel leh odayaashii dhaqanka leh ciidamadii qalabka siday leh waa shacabkii reer jubbaland oo rabitaankooda iyo dareenkooda iyo siyaasaddooda iyo mustaqbalkoodaba raba inay ka tashadaan waxaa nasiib darro ah in jubbaland ay dadka reer jubbaland shalay telefishinada ka arkayaan waxa dhacaya iyagoo reer jubbaland aan ka qayb gelin ee dad sidii la arkaya 4 maalmood garoonka laga soo daabulayey laysugu keenay dadkii reer jubbaland jidadkii laga xihay oo qof shalay dada doontay aanu ku jirin arrimaha meesha yaalla aynu isugu nimid maanta waxay tahay inaynu dareenkeenna isbeddel doonku uu caddaado oo ah in ciddii aan doorannay aynu ku kalsoonaanno isla markaana cid naga leexin kartaa ayna jira waan ognaa kuwo badan oo innaga ka mid ah in la xidhxidhay kuwo badan loo hanjabay kuwo badanna ay dhinteen allahu naxariistee qaarna ay dhaawac yihiin intaasoo dhan waxaa loo jeeday in laynaga leexiyo hadafka aynu ku soconno horaynu u sheegnay inaynaan ka leexanaynin haddii alla yidhaahdo jubbaland waxay u baahan tahay midnimo waa sheegnay 6 bilood 7 bilood mar laga joogo hadday dhici weydo doorasho la wada leeyahay waxaa dhici doorasho la kala leeyahay waxaa dhici caleemasaarre kala duwan waxaa dhacaya baarlamaanno kala duwan baa dhismaya waxaa dhismaya madaxweynayaal kala duwan horaan u sheegnay ma aha waxaan ku faraxsannahay shacabka jubbaland inuu kala qaybsamo horaynu isugu sheegnay ma aha waxaan ku faraxsannahay caleemasaarre kala duwan ma aha inaan ku faraxsannahay madaxweynayaal kala duwan laakiin waa nalagu khasbay waa laynagu khasbay dhammaanteen sidaas oo ma ahayn qofkii jubbaland madaxnimo ka doonaya waxaa la rabaa reer jubbaland inuu soo hor fadhiisto oo yidhaahdo walaalayaalow codkiinna ay siiya laakiin waa laydin khasbayaa iyo maxaanku idhaahdaa idinkoo fadhfadhiyaan doorasho ku samaysanaya intaan 10 qof meel ku xaraysto taas reer jubbaland waa diideen arrinta shalay dhacday ee dadka isugu yimid halkaas waxaa nasiib darro ah inay yihiin dad loo soo kiraystay inay qaranka soomaaliyeed dumiyaan waxaa muuqata in ay caasimaddii qaranka soomaaliyeed diideen oo ay yidhaahdeen waa barmuudaynaynaa waxaa muuqatay oo la wada arkayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waa astaanta qaranka ma aha maxamed cabdulaahi farmaajo oo keliya waa astaanta qaranka soomaaliyeed in lagu aflagaadeeyo oo loo gafo oo la dhibaateeyo oo wax laga sheego waxay la mid tahay qaranka soomaaliyeed oo wax laga sheegay
sidaas darteed annaga reer jubbaland haddaan nahay wixii shalay dhacay ee halkaa ka dhacay xaal baan ka bixinaynaa xaalkaana waxaan siinaynaa qaranka soomaaliyeed waan ognahay bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogtay guda iyo dibad inay ka cadhootay ka xanaaqday ka xumaatay isla mar ahaantaana wixii xalay iyo shalay la isdhaafsanaya waynu arkaynay dhammaantiin reer jubbaland xaal bay idinka siinayaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan guda iyo dibad waxaa kaloo meelka dhac ahaa hadalladii lagu hadlay ee ahaa gabdhaha soomaaliyeed waynu ognahay dariiqii loo soo mari jiray dhibkii loo mari jiray xoolihii laga bixin jiray hubkii laga bixin jiray gabadh la dharbaaxay ama gabadh la xumeeyey ama gabadh wax laga sheegay qaran dhan ummad dhan baa ku rogman jirta aad baa u mahadsantihiin gabdhaha soomaaliyeed reer jubbaland iyo gabdhaha soomaaliyeed oo dhan xaal baa idin siinaynaa haddii aan la yidhaahdo xafladda xaalmarintana waa dhigi doonnaa haddii aan la yidhaahdo xafladdaas iyo xaalmarintaana waxaa bixin doona madaxweynaha qaranka haddii aan la yidhaahdo intaa marka laga tago dadkii shalay meesha isugu yimid noocyadooda kala duwan iyo sida ay yihiin saaxiibbaday baa sifeeyey laakiin waxaan rabaa meeshan waxa ay u yimaadeen caleemasaarra ma ahayn xal soomaaliyeedna ma ahayn waxay ahayd kow inay ummadda jubbaland dhibaato ka dhex abuuraan labo waxaynu ognahay qaranka soomaaliyeed iyo dawlado shisheeyaa ishaya inay qaranka soomaaliyeed lugta qabtaan si looga adkaado taladooda labaadna taasay ahayd intaa marka laga tago waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda soomaaliyeed qodobkooda saddexaad waxaa weeye doorashada ololaha doorashada 2021 sidaasi darteed shacabka soomaaliyeed gudo iyo dibad meel kastoo uu joogo dadka qarankii soomaaliyeedna inay dawlado shisheeye u luqabtaan u yimid ummadda reer jubbalandna inay isku dilaan ee u yimid 6 su'aalood baan weydiinay ood wada og tihiin isbeddeldoonku 6 su'aalood buu weydiiyey dabcan hadday madax inoo noqdaan sida maamulkii hore ee jubbaland inoola dhaqmay bay inoola dhaqmi doonaan maadaama ay raalli ka noqdeen dadka noocaas ah soomaali way u calaamadsan yihiin way taqaanaa in cod la siiyo 2021 qofkii soomaaliyeed oo cod siiya wuxuu ka mid noqonayaa inuu ku garab siiyey qaranduminnimada iyo in soomaaliya laga adkaado baaqayga waxaa waaye nimanka qarandumiska ah ee jubbaland isugu yimid ee kismaayo joogay ee shalay hoolka wada joogay ee aad arkayseen waxa ay ka shaqaynayeen 2021 qofkii cod siiya inagama mid aha soomaali kama mid aha intaa marka laga tago reer jubbalandow annagu waxaannu horena u sheegnay haddaynu nahay isbeddel doon annagu markaan leenahay waa innagoo dhan in jubbaland horumar la gaadhsiiyo tusaalooyin yaryara oo maamulkii hore ee faylgaroobay ee fashilmay ee jubbaland uu dadka uga dhigto maxaanku idhaa calool jileec waxay yidhaahdaan gabdhaha dhoobley laga soo qaadayo ee inay umulaan doonayey dayuuradihii lagu soo qaadayey waa la xandhibay annaga waxaan rabnaa oo noo qorshaysan gabadha dhoobley joogta cisbitaal in dhoobley loogu sameeyo een dayuurad la soo saarin taasaa noo qorshaysan ma
هاي ما أنت إن ديورة لغوصو قادة قبلها أموليا وحي إن إسبتال ميشو دي كوهايستان لعقتي إسبتال لغو ديسيلها إسكولة لغو ديسيلها وحبرشة لغو ديسيلها قرنتو مسنبا لغا شقيا يلالوش ugu yaraan $1 milyan baa ku baxday dadkii 5 maalmood la soo daabulayay ciidamadii Jubbaland mushaar la'aan bay wadada la dhooban yihiin markaa horaan u sheegnay ciidamada Jubbaland iyo ciidamada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhowr sano ka horna waa sheegnay haddana waan ku celinaynaa mudnaanta koowaad bay noo yihiin iyaga iyo xaasaskooda iyo carruurtooda xagga waxbarashada iyo caafimaadka dhinac walba iyo mushaharkooda noloshooda annaga maamulka aan madaxda ka noqon doona haddaana doorantaan haddii aan la yidhaahdo intayada midkaa doorantaanba waa isku kalsoonahay man dhici doonto askari reer Jubbaland inuu mushahar waayo ma dhici doonto inuu $100 qaato bishii because waan ognahay inta inayna waxba ku taraynin ma dhici doonto in uu dayac meelaha la taagnaado ma dhici doonto inayna darajo lahaanin 8 sano hal alif laa inaan lacagta guryaha iyo magaalooyinka iyo dayuuradaha iyo maxaan ku idhaahdaa laaluushka iyo dadka lagu gurayo qaranka iyo ciidamaday geli lahayd waxbarashada lagu samayn lahaa gabdhaha umulaya Doobley jooga iyo kuwa Badhaadha jooga iyo kuwa Kulbiyow jooga iyo kuwa jooga Afmadow iyo Gedo iyo inta kale oo degmooyinka ayaa lagu dhisi doona lagu dhisayaa haddii la yiraahdo reer Jubbaland diyaaru maaha 8 sano inay 2 kiiloomitir ku xariisan yihiin Sacmooja iyo Madhamaato reer Jubbaland isbedel doonku wuxuu u diyaarsan yahay isagoo kaashanaya innagoo kaashanayna dawladdeena federaalka in Jubbaland ay ku shaqeyso caasimadii dhabta ahayd ee Jubbaland ee Bu'aal waa garanaynaa falsafadaha iyo siyaasadaha iyo ujeedooyinka ka dambeeya in la xoreyn waayo deegaanadaas muddo intaa leeg oo in yar oo kooban lagu ekaado ujeedooyinka ka dambeeya waa garanaynaa si fiican baa u fahamsanna waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo ururiyo Soomaaliya dad isdiidan oo kala cararaya oo kala ordaya waa la arki jiray annaga isbedel doonka waa midaysanna waana midaysnaan doonnaa Jubbaland iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego Jubbaland waxa ka socda ee la isku haysto si fiican u dhagaysta warkaas waxa la isku haysta ee Jubbaland ka socda ma aha doorashada Jubbaland waa qarannimadii Soomaaliyeed waxa la isku haysto Soomaali si fiican ha u dhagaysato waxa la isku haysto waa qaranka Soomaaliyeed jiritaankiisa iyo badbaadintiisa golaha badbaadada Jubbaland macnihiisu waxa weeye golaha badbaadada qaranka weeye waxaan rabaa walaalayaal ma aha kama dhici jirin Soomaaliya laba madaxweyne in lagu caanasho isku meel in lagu caleemo saaro waxay muujinaysaa bisaylka siyaasadeed iyo waxa ina hor yaalla waxa uu yahay taa macnaheedu waxay tahay doorashaan samaynay doorashadaan samaynay waan garanaynaa inayna ahayn tii aanu rabnay laakiin waana lagu khasbay waxaanu diyaar u nahay oo soo dhawaynaynaa taa waxay caddaynaysaa inaanan kuraas u ordaynin baahi noo qabin aanan u haliilaynin sida dadka qaarkii ay dhalaan iyo dhagalaan ugu socdaan
lahayn inaan u hoggaansanno habraacii dawladda federaalku ay keentay oo ay tiri doorashadii Jubbaland waa lagu celinayaa haddii shacabkeenna iyo ummaddeennu noo garato inaan hoggaaminana waa hoggaaminaynaa hadday qof kale u garatana waa la shaqaynaynaa laakiin dad aan meelaha ka soo ururiyey baa ay dooranaya dad aan dayuurada ku keenin maxaa dayuuradaha looga baahday annaga meel la qaadaan la'anahay shacabkeenni waa kana hoolka dadkana u baahnaa inay tagaan ayagaa madax loo noqonaya dadkii madaxda loo noqon lahaa waa kuwana ma dadka galabta dhoofaya qaarna shalay dhoofeen baa madax loo noqonaya maxaa dayuuradaha loogu soo guraya lacagta dayuuradaha lagu soo kiraynayo ee weliba qarankii Soomaaliyeed hawadiisii lagu xadgudbayo ilaahay baan idinku dhaariyay shakhsiyaad ku soo dhuuntay dayuurad qarankii Soomaaliyeed ku xadgudubtay igu qari dayuuradan raadaarka ka dhuumo badda agteeda mar maxaan ku idhaahdaa raaskaambooni ka soo gal geedkan ka hoos bax kismaayo igu deji ma qofkaasaan xukuumadda ugu doonaa ilaahay baan idinku dhaariyay ma kuwaasaan u dhiiban karnaa maxaan ku idhaahdaa maseerkeenna aan u dhiiban karnaa waxaa la mida kuwa kale caleemasaar xalaal iftiin baa la qashaa waa la cilaamiyaa taariikh heblaa la qaban doonaa baa la yidhaahdaa caawa ii soo dhuunta berritaan qabanaya waxaas xaggee lagu arka waxaa soo hadhay waxaa Jubbaland ka dhacay oo aan ku soo gebagabaynaya annaga horena waa idinku sheegnay laaluushna nalaguma siri karo naafishaarnimana looma keeni karo xil baan naloo sheegi karin intaan waxa ay ku qanacdaan ku qanacnaa iyo inta kale ka badan ee maqan hebel baa lala shawray iyo hebel baa loo yimid iyo hebel baa xagga laga soo maray waxaa iska ilaawa horena waa idinku sheegnay waxaa soo hadhay dib u heshiisiin Jubbaland waxa ka dhacay maadaama aanan ku faraxsanayn Jubbaland inay heshiisaan diyaaruna laakiin yaa heshiisiinay ma kuwa ujeedadoodu tahay inay qarankii Soomaaliyeed ku duulaan baa heshiisiinay annaga horaan idinku sheegnay wada hadal mabdi'iyan waa soo dhawaynaynaa in la wada hadalka maxaa ka soo baxaya waray doorasho ma dhicin doorasho hadda inoo qabto waxaad fiiriysaa odayaashii dhaqanka ku celiya maxaan ku idhaahdaa inay baarlamaankii soo qoraan in dawladdii federaalka ay timaado maxaan ku idhaahdaa inaan la qarin ma qarinayno madaxweynaha dawladda federaalka maxaa Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaheenna weeyaan dambi ma aha shalay meeshii ay isku caleema saarayaan hal sawir oo madaxweynihii qarankaa saanta qarankaa waa laga waayay waxaana suraa sawirro ummado kale iyo dawlad ra'iisul wasaare xasan cali khayre waa ra'iisul wasaaraheenna hadday dad badani u haystaan isbeddel doonku wuxuu xidhiidh la leeyahay dawladda federaalka haddaanaan dawladda xidhiidh la lahaanin yaan la lahaan lahayn ma dawlado shisheeye oo aan Soomaali ahayn waa ku faanaynaa waa ku faraxsannahay waana ku dhiirannahay madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda federaalka inaan dhegaysanno taladooda iyo meesha ay noo hogaaminayaan haddii alla yidhaahdana annagu Jubbaland hogaamintayadu waxay ku qotami doontaa Soomaali midaysan hawada Soomaaliya hadday dawladda Soomaaliya tiraahdo laguma soo xadgudbi karto kuma soo hogaamin doono shisheeye badda Soomaaliya haddii ay dawladda Soomaaliya go'aan ka qaadatana go'aanka ay ka qaadatay baa reer Jubbaland iswada garab taagaya
waxaan ku soo ururinayaa Soomaaliya ha noolaato ha israacdo qaranka Soomaaliyeed ha guulaysto saaqidiinta reer Jubbaland haddaynu nahay halku dhageyno waxa weeye saaqidiinta siyaasadda ee Jubbaland ku soo duulay ma maqlayno ma arkayno annaga waa joognaa intaasaanu joognaa mid isbedel doonka ka mid oo la kulmeen ma jirto mana la kulmi doonaan haddii horaan u sheegnay mabdiyan wadahadal diyaar baan u nahay wadahadalka uu hogaaminayo suldaan cabdulaahi cali sokor suldaan cali sokor horaan u sheegnay waa suldaankayagii waa soo dhawaynaynaa waa dhegaysanaynaa laakiin saaqidiinta siyaasadeed ma soo dhawaynayna